aad u mahadsantahay abwanad xalwo bulxan cali waxaan jecelahay in aanad ka tagin gebi ahaanba raggii oo dhan oo aan oran karno intaas oo tusaalaba haddii aad bixisay u malayn maayo in ay sii hareen rag la guursadaa sanadkan haddaba xalwo intaa aanan ka bixin in gabayaagan guuraan kala aado waxaa suurtagal ah maanta in ay idiin bilaabatay jawaabihii gabayada oo ay suurtagal noqoto in abwaaniin badan oo Soomaaliyeed oo hadda ku dhageysanaya in ay iyaguna mar saddexaad iyo mar afraadba ay ka gabiyo doonaan dumarka haddii aan kula kaftamo ma difaaci doontaa dumarka Soomaaliyeed mustaqbalka horaan ugu sheegay gabaygayga waxaan ugu sheegay ragga guriyihii haddaad naga jafteen ubad gardaadsiinta aan ku gaalaysanay in ragga goobta noo fidiya guusna ku way raacda aan wada guddoonsiina marka laba ayaga door u leh inay dhahan ilmaha ka soo taginina guriyaha jooga idin gabimayne inaan banaanka isugu wada baxno waxba kuma dhaxay oo gabayada dumarka loo tirinayay macnaheedu la xiro ha oo ninkii naag wanaagsan arkaana guursado midii ku xumaatana dadka isuma dhaganay la kala tago laakiin gabay anagoo guriyihii joogno oo hawshii sii wadna in fadhi ku diradana loo gabiyo raali kama nihin وهاجاك داوديال waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena murtida halabuurka oo toddobaadkana ay marti noogu ahayd abwaanada Soomaaliyeed caanka ah xalwo bulxan cali oo iyadu kamid ah haweenka farakutiriska ay gabya xalwo adiga oo maadsan maadaama suugaantaada kala gedisan iyo waliba gabayadaaduna aad ay u fara badan yihiin maxaa kale oo maanta aad noo raacin kartaa inagoo waqtiyo badan isugu soo noqon doona barnaamijyadeena dambe bal maxaa kale oo murtiyo maanta halkan aad rabtaa inaad ka gudbiso waxaan ku darayaa gabayro aad u gaaban oo la dhaho jiingadaha fiiqan gabayga oo aan sameeyay xilligii embagaati ay ku shirayeen baarlamaanka Soomaaliya sidaan saa ugu sii wada fiirinayno aan u lahayn waxba ka soo bixi doona oo maaragtay nabad baa la heli doona wadankiina aad ku noqon doontiin mid walba kursiga ku fadhiyay intuu ka kacay oo kii ka horeeyay ku dhuftay maalintaas aan soo saaray gabaygan la dhaho jiingadaha fiiqan nimayo naxwaan furahayaa feerahay dagaye lamana fayda maansada adoon faaladeed garane dhaaxaan ka fiirsaday inaan faraxumeeyaaye fir ayaan u leeyahay hidiya jaamac faraciise sidii galayax iyo waalanaan soo fatahayaay dhagihiina fura dumarka waad ficil xumaysaane fadhiyadii la qaatay duciya khayr la filanayay raggii wada fariistaa qarribay foomkii xaajada shacabkuna waxay filanayeen waaye faraxiye nimankii fahmada sheegan jiray finish garaadkii mid waliba intuu tiisa fulindiid fiyoobida haddaad fuul tihiin oo dalkii foorinahayaay fuuqsatee maxaa yaal kursaad wada filaysaane dhiiggii fatahayood cabteen feeruhu degay fin iyo boogba daacee xukuma jiingadaha fiiqan fasax baad qabtaan haatan oo layska kala fiigiye faquuqaad digteen baa dadkii fayba meel degaye firxad iyo waxaa lagu ambaday firir abiidaahe foolxumadaad beerteen ayaa faasidkan dhigaye taariikhda waxaa idiin fadhiya warar aan fiicnayne foodley sideedoo kale aad ficiltamayseene farafootankiinaa naf iyo maalba fuuqsadaye fayris ba idin saaqoo jirkiin meel fayow ma lehe ficilka iyo qowlkiinu waa kala fogaayeene fiirada ishiinaa dabneed firita ceebeede uurkana waxaa idiin fadhiya baladaad fuuqdeene farahaad ku qabataan waxaan eebbahay farine lugahaad ku fulisaan dadkood kala fogaysaane shacabkii fursadan dhowrayaa quus la foorare fakarnoo waxaan yeelnabaan foolna noo bixine rabbaa tala ku filan ee rajada faxanaha u daaya aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay xalwo bulxan cali sugaanta kala gedisanaya maanta halkan aad ku soo bandhigtay ugu dambeyntii maxaad faraysaa maadaama gabaygani uu yahay gabay hiila ah oo aad kaga soo horjeeday gabayadii hore ee guraan kala aado isla markaana aad ugu hilinaysay dumarka Soomaaliyeed maxaad fariin guud u faraysaa dumarka Soomaaliyeed caawa ku dhageysanaya dumarka Soomaaliyeed waxaan farayaa midii aan hore u faray oo ahayd haddii raggiinu ay wanaagiina arkaan iyo hawsha howlqabadkiina runtii 20 sano ama 20 sano oo dalkii burbursanaa hawsha iyo horumarinta qoyska waxa gacanta ku hayay gabdhaha Soomaaliyeed nimankiina wax leh asxantu iyo waa mahadsantii runtii maanaan arkine wali waxay leeyeen anaga hawsha iyo maamulkii hayna oo maaragtay naagi maxay qaban kartaa marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay hawshiina iyo korintiina iyo wax qabadkiina sii badiya barbaarinta ubadka oo jidka toosan aad ku hagaysiin oo maxaan dhahay waxbarashada ku dadaalaysiina badiya haddii tii maxaan dhahay abwaanadana ay aragto maca gabay ka yimid maaragtay ragga oo ay ka jawaabi kartana ha ka jawaabto taasaan kula talinayaa hablaha Soomaaliyeed aad iyo aad mahadsantahay xalwo bulxan cali wana soo noqon doonaa hadii ee barhaali ka noqdo barnaamijyadeena dambe
iyo barnaamijkeena murtida hal abuurka. barnaamijkeena inta badan waxa aynu ku eegnaa suugaanta kala gedisan ee ay ummadda Soomaaliyeed u leedahay dhaxalka. barnaamijkeenan ayaa waxaa ka qayb qaadan kara dadka iyagu inta badan ka gabya ama murtida kala duwan ee Soomaalida hoga tusaaleeya. barnaamijkeenan waxay idin soo jeedinayaan anigoo Ibrahim Maxamuud Jaamac. intaanu barnaamijka xiga ku kulmi doono waa dhammaan hawlwadeenada Somali Channel oo idinkaga tagaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.